su'aalaha wali maanka shacabka Soomaaliland u gaajaysan yahay jawaabahooda waxa kamid ah sanadkii 2018 sidoo uu dhacay kulankii bixiyay wafdigii Soomaaliya ka joogay xajka 2 bilood ka hor isla sanadkan 2020 maxaa ka dhacay Addis Ababa maxaa la isla qaatay muxuu salka ku hayay kulankii Muuse Bixiye Farmaajo ee ka dhacay Addis Ababa maxaa suurtageliyay madaxweyne Farmaajo 40 daqiiqadood gudahood ku ogolaysiiyay Muuse Bixiye maatinkiisa Hargeysa maxaa la isdhaafsaday maxaa bedelay erayadii adkaa ee Muuse Bixiye kala hortagi jiray Farmaajo wixii ka dambeeyay kulankaasi maxaa ka jira isbedelka fikirka bulshada ku aadanaa Muuse Bixiye oo loo haystay madaxweynaha ugu mayalka adkaan doona xamar imika lagu tuhunsan yahay inuu yahay kan kaliya ee iibin kara Soomaaliland muxuu noqonayaa halgankii ay ku shiideen marka xamar xisbi jooga Soomaaliland looga talinayo Allahu Akbar ma gayro xamar taladeeda ma aqbalo waxba nagama dhaxeeyaan wixii la dhex yaallay kama naanbogsan nooma garaabin xamar qarnimadeeda way diidan tahay ninka looga talinayaa isaga u taala door intee leeg ayay danaha gaarka ee madaxweynuhu ku leeyihiin arrinkaasi waa sidee xaalka siyaasadeed ee ku wajahan xurgufta diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Soomaaliland dalkii ay ka go'day ee Soomaaliya muddadii uu talada hayay madaxweynaha haatan ee Muuse Bixiye Soomaaliland hore waxay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudahaba uga soo adkaatay madaxdii haysay talada dawladihii kala dambeeyay ee Soomaaliya Allah u naxariistay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu intii uu hayay talada dalka wada ku daray qabqablayaashii Soomaaliya madaxdii kala qoqobnayd ee dalkaasi ka talinaysa oo ay kamid ahaayeen Ali Mahdi Maxamed madaxweynihii talada hayay waqtigii la doortay Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo Cabdiqaasin Salaad Xasan oo Soomaaliya ka arriminayay sanadii 2010 iyo intii uu ka geeriyoonayay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal labadaasi madaxweyne oo isku waqti ahaayeen madaxweynihii labaad ee Soomaaliland way awoodi waayeen inay nusqaamiyaan dawladii Yagleelka ahayd ee 18 May 1991 lagu dhawaaqay ee Soomaaliland iyadoo madaxdaasi taagan kana arrimiye dalkii weynaa ee la aqoonsanayo Cigaal ku guuleystay inuu xuduudihiisa xidho dadkiisana u sameeyo dawladii ciidan awood badan oo hanatay amnigii iyo xasiloonidii guud ahaanba Soomaaliland sidoo kalena madaxweynihii hore Mudane Daahir Riyaale Kaahin waxa walbaabada ka xidhay dawladda Soomaaliya waxaan u mamnuucay isku socodkii iyo isku milanka labada dhinac sidoo kalena waxa uu adkeeyay midnimadii iyo wadajirkii ummadda reer Soomaaliland isagoo ka saxartiray inay kala ugaarsadaan cadawgu muddaxileedkii madaxweyne Riyaale oo isagana isku beegnaayeen madaxweynihii geeriyooday ee Soomaaliya Cabdilaahi Yuusuf Axmed iyo Shariif Sheekh Axmed oo ka dambeeyay labadaba waxa uu suurtagali weeday inay daaqilka u soo galaan ama ay wax saameyn ku yeeshaan siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo wali dibad joogka gacmahana ka laabtay oo quus ka taagan saameyn ay ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliland ayuu yimi sanadkii 2000 madaxweynihii afraad ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweyne Siilaanyo waxa uu suurta gashay inuu ku soo beegmo 3 madaxweyne oo muddo 7 sano oo xilka hayay u kala dambeeyay waa arriminta Soomaaliya kalena aha madaxweyne Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa maragma doonahay in Siilaanyo dhamaantoodba kaga awood batay siyaasadda arrimaha gudaha diblomaasiyadda dibadda labadaba waxa uu wada hadal la furay dawladda Soomaaliya waqtigii Shariif Sheekh Axmed wada hadaladaasi oo socday ilaa iyo waqtigii Xasan Sheekh Maxamuud iyo bilowgii xukuumadda haatan ee Farmaajo waxa uu ku guuleystay inuu heshiisyo muhiim ah uu la saxiixdo sidoo kalena waxa heshiiskaasi qayb ka ahaa in meesha laga saaro inaanay Soomaaliya marnaba ay soo taagin lana siyaasadeen wax kasta oo dhanka horumarka labadaas dawladood waxay ahaayeen laba xukuumadood oo diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah Soomaaliland kaga adkaatay dawladahoodii intii ay talada hayeen Soomaaliland waxa uu suurta gashay inay dunida la gashay heshiisyo caalami ah oo ay galaan dalalka la aqoonsan yahay oo kaliya waxaana kamid ahaa heshiisyadaasi heshiisyadii macdanta iyo shidaal baadhista oo Soomaaliland markii ugu horeysay yeelatay iyo mashaariicdii horumarinta dekada berbere ee DP World iyo saldhigga military oo Soomaaliland imaaraadka la gashay iyagoo la yahay dawladda siman madaxweyne Farmaajo oo raantii 2017 Soomaaliya madaxweyne ka noqday waxa ay Soomaaliland wada galeen dagaal qaawan oo ku doonayay inuu ku joojiyo saldhigga military iyo maalgashiga dekada berbere nasiib xumo waa ay ku guuldareysteen imaaraadka iyo Soomaaliyana waxa soo kala dhaxgalay khilaafkeena inay ooda kala rogtaan dhanka kalena asaasidii sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF waxa uu meesha ka saareen caawimaha hay'adda ama cid kale Soomaaliland loo soo mariyo waxaanay dunidu si toos ah deeqdeeda u soo marin jirtay sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo ay bilaabeen 4 dawladood oo kala ah Ingiriiska Netherland waa Holland Denmark iyo Jarmalka tabayaaqadii sanadkii 2017 waxa Soomaaliland taladeeda qabtay madaxweynaha haatan Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay doorteen aqlabiyadda shacabka Soomaaliland
Somaliland bal markana aan eegno laga bilaabo 2017 ilaa 2020 dariiqada isla mareen madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumadda Farmaajo ee wali Muqdisho ka talisa madaxweyne Farmaajo oo xukuumaddiisu si wada dagaalkii ay horeba xukuumadda Somaliland kula jirtay waxa uu markan helay fursad ay wax badan uga suurtagali karaan madaxweyne Muuse Biixi bilowgiiba waxa uu garoonka siyaasadda ku soo galay adag waxana halku dhig u ahaa anagu Soomaaliya ma nihin cidna la hadli maynay anaga ayaa isku filan taasi oo sababtay inay siyaasadii furfurnayd ee ilbaxnimadii iyo xadaarada lahayd ee Somaliland la ciyaari jirtay caalamka ay meesha ka baxdo waxa muuqatay bilowgiiba in madaxweyne Muuse Biixi aanu lahayn kartida iyo farsamada ay Somaliland u baahan tahay si loo helo siyaasad iyo wasaarad arrimo dabadeed oo kor u qaada meeqaamka Somaliland ee geeska Afrika iyo caalamkaba Soomaaliya oo in badan Somaliland cunaha kaga marnaydna waxa uu suurto gashay inay madaxa la soo kacdo iyadoo ka faa'iideysanaysa madaxweynaha adduunka xiriir la lahayn bilowgiiba waxa Soomaaliya qiyaastay qorshe la'aanta xukuumadda Muuse Biixi ee arrimaha dibadda waxaana ay bilowday tallaabooyin ka dhan danaha qaranka Somaliland maadaama aanay jirin filashada wax jawaab ah oo dhinaca Somaliland waxaana arrinku ku dambeeyay in Farmaajo xukuumaddiisa Muuse Biixi kaga adkaado hay'adaha siyaasadeed ee IGAD midowga Afrika iyo qaramada midoobay waxa kale oo yaraaday xiriirkii Somaliland ee dawladaha aynu la lahayn saaxiibtinimada taariikhiga ah dawladahaasina waxa laga xusi karaa Ethiopia Kenya South Africa Britain iyo Mareykanka ugu horeyn waxa ay kaga bilaabeen inay ka dhaadhiciyaan dunida waa Soomaaliya siyaasadooda cusub oo ay ku sheegeen isku soo celinta iyo mideynta waxa ay ugu yeedhayeen qarankii Soomaaliyeed waxaana ay si degdeg ah casuumada ugu kala direen hay'adihii Somaliland iyo Soomaaliya caawin jiray deegaanada Nairobi waxaana ay dadaal badan ku bixiyeen inay u soo guuraan Muqdisho Somaliland oo dal nabada xukuumadeeda waqtigan joogta waxa ay tahli weyday iibinta amniga xasiloonida iyo nabadda ay haysato qorshaheedana kuma ay darin inay hay'adaha waaweyn ee beesha caalamka matala ay xarumo ka samaystaan magaalooyinkooda nabadda ah taas beddelkeeda Soomaaliya waxa uu suurta gashay in dalkooda aan xasiloonayn ay u soo raraan hay'adihii Nairobi deganaa geedigaasi oo sababay in dad badan oo hay'adaha ka hawlgalaya amni darrada Soomaaliya darteed shaqooyinkoodii uga tagaan hay'adihiina waxay sidaas ugu soo guureen Muqdisho muddo kadib waxa Soomaaliya wasiirkeeda qorshayntu uu soo saaray waraaqo uu ku amraya hay'adaha deeq bixiyayaasha ah uguna sheegay inaanay Somaliland si toos ah ula macaamili karin oo ay qaaraanka u soo mariyaan dawladda Soomaaliya arrintaas oo 80% u suurta gashay Soomaaliya xidhnaantii siyaasadeed ee madaxweyne Muuse Biixi bilowgii dawladdiisa waxay Somaliland seejisay hay'adihii shaqaalaha reer Somaliland ee Nairobi tababarada ugu tagi jiray waxaanay haatan u tagaan tababaradaasi magaalada Muqdisho waana ta ka dhigtay mashquulka diyaaradaha taga xamar ee ka baxa Hargeysa madaxweynayaashii hore ee Somaliland waxay ahaayeen kuwa adduunyada xiriirka la dhaxeeyo oo la kulmi jiray madax badan oo heer caalami ah tusaale ahaan madaxweynihii ugu dambeeyay madaxweyne Muuse Biixi talada kala wareegay waxa uu la kulmay madax ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ra'iisul wasaaraha Ireland xogayaha qaramada midoobay madaxda Turkiga iyo madax badan oo reer galbeedka iyo Carabta ka mid ah nasiib darro madaxweyne Biixi intuu ahaa garwadeenka wali ma dhaafin qaaradda Afrika gaar ahaan dalalka Ethiopia iyo Djibouti iyo dalka Guinea oo la sheegay inuu la kulmay madaxdiisa sare balse aan wax cadayna laga haynin taasina waxa ay jawaab u tahay inay Soomaaliya ku guuleysatay in albaabada u soo xidho siyaasadii arrimaha dibadda ee Somaliland hadiyadoo waqtigan la ildaran dilaagan la arkaynin ee COVID-19 beesha caalamku waxay Soomaaliya ugu deeqday 137 milyan oo dollar waxaana heshiiskaasi bangiga adduunka la galay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya deeqdaasina waxa gaar u qaadatay Soomaaliya halka Somaliland magaalada Burco oo magacyaalka caasimada labaad ee Somaliland loo naadinayay ambalaas muddooyinkii u dambeeyay halka Soomaaliyana ay laba diyaaradood oo deeqa ugu deeqday gobolada Sool iyo Sanaag oo ay ciyaarayso shax siyaasadeedka kama mid aha Sool iyo Sanaag Somaliland qodobada ugu muhiimsan ee xukuumadda Farmaajo ku guuleysatay intii Muuse joogay dalka waxa ka mid ah intii madaxweyne Muuse joogay Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay inay kala fogeyso Somaliland iyo saaxiibkeedii koobaad ee Ethiopia waqtigan Ethiopia waxay u dhagan nugushahay siyaasadda cadawga ku aadanaha Somaliland ee Soomaaliya xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi ka hor xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia waxa uu ahaa mid aan wanaagsanayn waxaana saameyn ku dhex lahaa kala fogaantooda Somaliland oo danaha kala dhaxeeya sababa Hargeysa uga faa'iideysan jirtay intii madaxweyne Muuse joogay Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay cunaqabatayn iyo cadaadis dhaqaale saarto Somaliland sida ganacsatada Somaliland oo ay ku khasabtay inay ruqsadda ka qaataan Soomaaliya kana furtaan xafiisyo gudaha Muqdisho intii madaxweyne Muuse joogay Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay meesha ka saarto rajadii riyadii iyo dadaaladii aqoonsi raadineed ee shacabka iyo dawladihii ka horeeyay reer Somaliland qabeen oo waqtigan u muuqatay in la iska ilaaway doorashadii madaxweyne Muuse Biixi oo ka dhalatay xanaf siyaasadeed bulshaduna aad ugu kala fogaatay madaxweynihii la doortay waxa uu awoodi waayay inuu shacabkiisa boogadhayo bulshadiisana xanaf tiro Soomaaliya oo ka faa'iideysanaysa tabashadaasina waxay ku guuleysatay inay hoos u dhigto midnimadii iyo wadajirkii shacabka Somaliland waxaana kala fogaaday bulshadii deegaamada intii madaxweyne Muuse joogay Soomaaliya waxa uu suurta gashay inay kala furfurto shacabka iyo dawladda Somaliland oo inaaqusiso iimaanka Somalilandnimada iyadoo waqtigan ay Somaliland yeelatay sawirka qaran ay cid gaar ah ku shaqaysato muddadii madaxweyne Muuse
muuse joogay Soomaaliya waxa uu suurta gashay inay hanato quluubta dhalinyaro iyo aqoon-yahano badan oo reer Somaliland kuwaas oo u boqolay xamar halka ay kuwa kalena ku hamiyayaan inay ku shaqo tagaan magaca midnimo. intii madaxweyne muuse joogay Soomaaliya waxa uu suurta gashay inay saameyn ballaaran ku yeelato siyaasadda arrimaha gudaha ee Somaliland gaar ahaan dhinaca baraha bulshada iyadoo markasta ku dhex furta doodo ay ka mid yihiin 30 sano kadib Somaliland xagay u socotaa. intii madaxweyne muuse joogay Soomaaliya waxa uu suurta gashay inay shabakado xidhiidhsan oo midnimo doon ay ka dhex samayso gudaha dalka Somaliland. intii madaxweyne muuse joogay Soomaaliya waxa uu suurta gashay inay warbaahinta Somaliland gacanta ku qabato isla markaana ay wariyayaashii qoraayadii abwaanadii iyo fanaaniintiiba xiriir dhow la yeelato. inta badanna waxa la arkaa warbaahinta Somaliland oo Soomaaliya uga waramaysa sidii laba dal oo isku mid ah. intii madaxweyne muuse joogay dawladda Soomaaliya waxa uu suurta gashay inay kala fogeyso shacabka Somaliland iyo dawladda madaxweyne muuse oo waqtigan kaligeed isu bogtay. waxaana haatan socdo qorshihii Soomaaliya ay kula wareegi lahayd badda. taas bedelkeedana waxay xukuumadda haatan ee Somaliland kaga mashquushay dalka baylahda ka abadiya bariba nidaam siyaasadeedka ku qotoma fikirka kala qaybi oo xukun baloodhan la boobay iyo xisbiyada la dagaalamo. hay'adihu fadhigoodu ahaa Nairobi ay Soomaaliya u soo rartay xarumahooda Muqdisho waxa shaqadii iska casalay badiba shaqaalihii halka kuwa kalena ay dib uga laabteen wadanka Soomaaliya sababa amni awgeed. Somaliland oo adduunka ka iibin jirtay nabadgelyada u gaarhayaha ka yahay shacabka gaajaysan kuma ay guuleysan inay ku helaan amnigaasi ka jira Somaliland bedelkeeda inay ru ka dhigtaan dalka hay'adahaasi taas oo tusaale u aradka ka jira siyaasadda arrimaha dibadda. waana sababta ay dhalinyarada Somaliland badiba isu weydiiyaan halka ay ku dambeeyeen siminaaradii iyo aqoon kororsiga ay u tagi jireen Kenya. intii madaxweyne muuse joogay xukuumaddiisa waxay Soomaaliya ku guuleysatay inay hawada Somaliland la wareegto oo maanta xamar laga maamulo. Somaliland iyo Soomaaliya waxay heshiis ku wada galeen dalka Turkiga waqtigii xukuumaddii madaxweyne Siilaanya waxaana lagu heshiiyay in si siman hawada loo maamusho magaalada Hargeysa laga maamulo sida ku cadaa qodobkii ugu dambeeyay heshiiskii Ankara. imaatinkii xukuumaddii madaxweyne muuse biixi waxa uu baabiyay wasaaradii duulista iyo hawada ee hawada Somaliland maamuli jirtay waxaana uu samaystay maareeye. arrintaasi oo Soomaaliya si weyn u hambaliyay dhamaadkii sanadkii 2017 iyadoo sheegtay inay markii horeba khalad ahayd in maamul goboleedyadu samaystaan wasaaradda duulista iyo hawa qaabilsan. Soomaaliya iyadoo ka faa'iideysanaysa baabintii wasaaradda duulista iyo maareeyaha haatan ee hay'adda duulista Somaliland loo magacaabay oo tan iyo intii uu xilka qabtay ka bixida dalku ha joogtay aan marnaba dhaafin kantaroolada Hargeysa kulana la yeelan hay'adii gacanta ku haysay hawada. waxay wada hadal la fureen waa Soomaaliya ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada ee KAO iyadoo maamuleysay hawada Somaliland iyo Soomaaliya waxaanay ka dhaadhiciyeen maamulka hawada Muqdisho loo soo wareejiyo. Somaliland waqtigaasi wax gorgortana kama ay galin dacwad iyo doodtoona kama ay furan. shaqaalihii hawada maamulayay ee Hargeysa ku sugnaa kana mushahar qaadanayay hay'adda KAO ee gacanta ku haysay duulimaadyada waxa uu maareeyuhu amar ku bixiyay inaanay xafiiskooda soo galin taas oo sababtay ka gaashan la'aanta qorshihii dhaca ahaa ee Soomaaliya waday. ugu dambeyn maareeyaha duulista waxa uu shaqadii ka eriyay 13 shaqaale ah kuwaasi oo hawada Somaliland gacanta ku hayay. ma ilahayn Soomaaliya dad aqoon u leh hawada oo dalkooda u dhashay iyagoo ka faa'iideysanaya fursadda shaqaalihii leeriyay waxa uu yeedheen shaqaalihii Somaliland riday waana kuwa haatan gacanta ku haya hawada Somaliland iyo Soomaaliya fadhigooduna yahay Muqdisho. heshiiskii Turkiga oo sheegaya in laba taawar oo isku awooda laga kala dhiso Hargeysa iyo Muqdisho Somaliland hay'adeeda duulistu kama ay daba tagin taas bedelkeedana Soomaaliya ayaa labadii taawar midna Muqdisho ka dhistay midna koonfur galbeed Soomaaliya oo hadda dhismihiisa la wado. shaqaalihii leeriyay oo ka qaraysnaa wixii kaga dhacay dalkooda hooyo bilowgii curashada cudurka COVID-19 ee geeska Afrika waxay ahaayeen kuwii bixiyay amarka celinta diyaaradii badda Yemen dusheeda ka noqotay ee Fly Dubai. fursad Somaliland bixisay ee shaqaale leeriyay ayaa sabab u noqday in hawadii lala wareego walaw aanay si toos ah u sheegin haddana xukuumadda Somaliland waxay mararka qaar suuqa soo gelisaa xukuumaddii hore ayaa hawada wareejisay. haddaba aan eegno 2018 oo ahaa sanad kadib markii xukuumaddii hore dalka ka tagtay yaa hawada gacanta ku hayay. maareeyaha duulista mar uu warbaahinta la hadlayay sanadkii 2018 waxa uu cadeeyay in hawadeeda Somaliland maamulato. haddaba waqtiga hawada Somaliland lala wareegay waa sanadkii 2019 sida ay Soomaaliya bashaacisay. arda soo fadhisan la madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa Maxamed Cabdi Rodol maareeyaha hay'adda duulimaadyada Somaliland oo weheliya agaasimaha guud ee hay'adaasi ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay maanta war saxaafadeedkan waxaan ugu talagalnay inaan kaga hadalno airspace-ka Somaliland. maanta halkan aan maareeyo guud ee hay'adda duulimaadka iyo madaarada aan ka sheegayna airspace-ka Somaliland waxa uu hora Somaliland cid kale loo wadaagtaana ma jirto sida aan xeebaheedana mas'uulka ay uga tahay dhulkeeda ay uga tahay xuduudeeda ay uga tahay hawada aan kuma doonayaan xulna hadaa yiraahdo hawada Somaliland maanta inay soo iman oo loo taabta gelin kaliya iskale.
marka laga yimaado hawada qorshaha ugu dambeeya ee Soomaaliya hadda u socda waa inay la wareegto badii Somaliland iyo Soomaaliya waqtigana waxa gacanta ku haya guddi farsamo. Soomaaliya waxay qorsheynaysaa inay si kama dambaysa ay badda ula wareegto bishii 3 ee Maarch sanadkan waxaanay magaalada Berbera ka qaadatay 16 shaqaale oo ah kuwii 2016 Somaliland ay u soo tababareen maraakiibta ciidamada badda ee Ingiriiska ee badweynta taagani. Soomaaliyana waxay shaqaalaha u ballan qaaday inay siin doonto mushahar dhan $2,000 ayna ku hayn doonaan gacanta badii ka dhaxaysay Soomaaliya iyo Somaliland. waxaana adeegsan doonaan 2 markab oo ciidan ah oo la siiyay Soomaaliya. muddadii uu hoggaanka hayay madaxweyne Muuse Biixi waxay ku suntan yihiin sanadihii ugu guuldarrada badnaa ee Somaliland soo mara. bulshadii oo kala furfurantay qarankii oo dabcay siyaasadii arrimaha dibadda oo albaabada loo soo laabay iyo madaxweyne Muuse Biixi oo sanadkii 3aad Hargeysa bulshada hoosta uga soo xiray. gees kastaba waxaad ka dheehan kartaa dhaawaca soo gaadhay iyo dhabarjabka ka muuqda qarankii aan wada dhisaynay. sidaan horeba u sheegnay xukuumadda Somaliland waxa ay kaga mashquulshay siyaasadda arrimaha dibadda arrimo hoose oo aan macno lahayn ayna ka mid yihiin iibka dilaalka iyo boobka dhulka fikir siyaasadeedka kala qaybi oo xukun oo ay ka wado gobolada bariga iyo burburinta xisbiyada mucaaradka ee qaranka. ay Somaliland hareeraha ka soo fagmayso iyadoo ay u muuqatay hogaaminta madaxweyne Biixi bilowgii xukuumaddiisaba mid fashilantay oo bartanka xarka galay.